madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta ka qayb galay munaasabad loo sameeyay dabcadii sharaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Hope University iyadoo ardayda ay tiradu gaarayso 105 arday oo ka qalin jabiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaas bixiso ayaa waxa maanta lagu qabtay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa iyadoo ay munaasabadan ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland culimada awdiin waalidiin iyo maamulka jaamacadda iyo marti sharaf kale aad u tiro badan ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici isagoo ka warramay ahmiyadda ay waxbarashadu u leedahay da'yarta wiilal iyo gabdhaba isagoo uga digay aafada tahriibka iyo khatarteeda waxaana madaxweyne ku-xigeenka hadalkiisii ka mid ahaa أنا بدل مسجد قاعد أنا بروح اليوم معايا ما في على الفلك كان مش على صلاة geesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Hope University Professor Najiib Sheekh Cabdikariim isagoo ka waramay maraaxilkii kala duwanaa ee jaamacaddu soo martay iyo halka ay haatan marayso iyo waxyaabaha ay eegsanayso waxaana hadalkiisii ka mid ahaa geedadaha sudday ayaa lagu helay maanta waxaa arkaysaana waxa ay kamid tahay fursadii shanaad ee arday jaamacadda Hope ka qalin jabisay soo imaanayso oo ah heerka jaamacadda fikradda jaamacadda Hope in la sameeyo hataa iyo kulmo gabagabadii waxaa halkaasi madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici uu shahaadooyin ku guddoonsiiyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacaddaasi Hope University